Kaymaha Amazon xooggeedu waxay dhacdaa waqooyi galbeed ee Brazil. Waxay ku tiirsan tahay dalal badan sida Colombia, Bolivia, Peru, Venezuela, iyo Tanzania. Biyo-dhaca Amazon iyo kaymaha Amazon ayaa ah kaynta ugu weyn ee caalamka. Ceeryaamada ayaa qarinaysa dhirta ku gadaaman kaymaha Amazon. Waxaad ku arkaysaa xayawaano yaryar iyo xayawaano kaleba dhirta gudaheeda. Qudaarta ka baxda Amazon waxay isticmaalaa xayawaanaadka sida daanyeerta iyo karowga. Amazon waxaa ku nool 30 milyan oo dadyow, waxayna u kala baxaan 40 qowmiyadood. Geedaha qaarkood ayaa ah geeda caalamka intiisa kale aan ka bixin oo laga helo keliya Amazon. Shimbirooyin kala nooc ah, dhirta oo cagaaran, xayawaano weligaa indhaha ay qabanin oo ku dhex nool kaymaha. Qaarkood waxaaba moodaaba in dunida inteeda kale aan laga aqoon. Amazon waxay leedahay 1000 webiyood, 16% webiyaha caalamka waxay ku dhammaadaan Amazon. Webiyaha waaweyn ee Amazon ayaa ah meel dadka iskugu imaadaan dalxiis, dadka deegaanka iyo kuwa dalxiisayaashaba. Waxay ku qabaystaan ay waqti ku qaataan kaymaha Amazon. Dadka qaar ayaa lacag waali ku bixiya sidii booqasho ugu tagaan kayntan ugu weyn caalamka. Waxaad arkaysaa buuro cagaaran, indhaha soo jiidanaya oo aad ka arkaynin caalamka intiisa kale. Buuro saan u qurux badan iyo wadooyin dhexmara buuraha, taasoo dalxiisayaasha sawiro, muuqaalo iyo waqtiba ku qaata. Xayawaanaadka sida maroodiga ayaa ah xayawaanaha ugu badan ee dhirta ka dhex muuqda waqti dalxiisayaasha ay socdaan. Webiga ayaa kalaradiisa isbedela waqtigaasi. Dhirta ayaa la moodaa in gacanta lagu simay, balse waa dabiici oo dadka ayaa indhaha ku nuursada ayagoo isticmaalaya doomiyo iyo diyaaradaha wax duuba.